kulan waan daawadeel halkan waa xog faafiye haddii aad channelkeena ku cusub tahay fadlan subscribe saaro oo rukumo like garay muuqaalkan share garay oo asxaabtada la wadaag aragtidaada iyo fikirkaagana xagga hoose inoogu reeb qodobada caawa aan idin haynana waxa ugu weyn madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo heshiiskii ama beeci uu la galay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ka baxay taasi waxay dhabarjab ku noqon doontaa hanka xukuumadda ay ka lahayd siyaasadda galmudug falanqayn iyo xogihii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa wararka intaas ka baxsan waxa qayb ka ah Mareykanka iyo sidoo kale Talyaaniga waxay ka hadleen falalkii argagixisnimo ee ka kala dhacay Muqdisho iyo Beledoogle iyana waan idin soo gudbin doonaa balse haddaan inta aynan u guda galin warkeena caawa xataa bagaliyay waxa dhamaaba bulshooyin Soomaaliyeed la socotiinaya in magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga looga furay shirkad weyn oo lagu magacaabo Villa Real Estate oo qaabilsan guud ahaan arrimaha guryaha shirkadda Villa Real Estate waxa ay si sharci ah u diiwaan gashan tahay dalka Turkiga waxaana ka howlgala shaqaale aqoon sare u leh howlaha ay qabanayaan oo ku hadla luqadaha kala duwan sida af Soomaaliga, Ingiriiska iyo Turkishka waxay kugu talagaleen inay kugu qidmeeyaan sida ugu sarreysa iyadoo waliba ay aad ku soo dhaweynayaan qiimaha marka aad qayb dhiibtaan qaybaha kale waxaad ku dhiibi doontaan si tartiib ah iyadoo wax riba haba yaraatee aanay lahayn Villa Real Estate waxay xarumo waaweyn ku leedahay magaalada Ankara ee dalka Turkiga magaalada London gaar ahaan dhinaca bariga 473 ee High Road Leighton magaalada Muqdisho iyo waliba magaalada Jigjiga. Hello, this is Gülten Taşkın from Villa Real Estate. I speak English and Turkish. Please feel free to contact me for any questions. Thank you. meel kastoo aad joogtaan yaa la moogaan inaad la xiriirtaan maamulka sare ee Villa Real Estate ee magaalada Ankara iyadoo telefoonada shaashada ku yaalana aad kala xiriiri doontaan. waa hagaag aan ku bilowna daawadayaal madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug mudane Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa beeci ama heshiiskii uu kula jiray xukuumadda federaalka waxa uu sheegay in uu ka baxay Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa in ka badan muddo 3 bilood ah talada gacanta u galiyay kooxda nabad iyo nolol balse ma aysan ku guuleysan in ay muddadaasi doorasho ku qabtaan Galmudug oo maamul cusub lagu soo dhiso madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf tallaabada uu qaaday dad badan ayaa u arkayay in ay ahayd mid qaldan balse aqoon-yahanada qaarkood waxa ay sheegayeen in muhiim ay tahay in isbedel la sameeyo arrintan waxa ay sabab u ahayd kadib markii madaxweynaha Galmudug khilaaf uu soo kala dhaxgalay asiga iyo madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir taasi oo sababtay in uu isaga soo baxo magaalada Dhuusamareeb xilli galab ah oo xaaladda siyaasadeedna ay aad u cakirneed waxa uu habeenkii ku hoyday magaalada Godinlaabe halkaasi oo markii dambena uu kaga daba tagay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre waxa ay wada gaareen magaalada Cadaado oo horey u ahaan jirtay xarunta madaxtooyada Galmudug haddana ah xarunta baarlamaanka ee Galmudug siyaasadii aad u cakirneed Axmed Ducaale waxa uu sameeyay isbedel oo uu talada gacanta ugu galiyay xukuumadda nabad iyo nolol si Galmudug ay tallaabo iyo go'aan kale oo hor leh ugu soo qaadaan ujeedkuna waxa uu ahaa in la soo dhiso madax cusub iyo sidoo kale maamul cusub oo Galmudug maadaama muddo xuleedkiisa uu dhamaaday madaxweynaha sharciga ama dastuurigana isaga uu ahaa qoraal ka soo baxay madaxweynaha Galmudug ayaa lagu sheegay in uu kalsoonidii ama sidoo kale go'aankii uu markii hore ku gaaray in uu xukuumadda ugu wareejiyo gacanteeda doorashada Galmudug in ay maamusho uu ka laabtay warqadan oo ku saxiixneed 29 Sebtembar 2019 taariikhdeeda ayaa lagu yiri dib soo celin wakaalasho madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug markuu arkay qorshaha kontonaad waa markuu arkay qodobka kontonaad farqadiisa shanaad ee dastuurka dowlad goboleedka Galmudug markii uu arkay in muddo gaaraysa 3 bilood ay dowladda natiijo la taaban karo aysan ka soo sameeynin arrimihii dib u heshiisiinta iyo sidoo kale doorashooyinka Galmudug isla markaana ay hakad galeen howlihii Galmudug markii uu arkay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug in dowladda federaalka Soomaaliya aysan diyaar u ahayn in ay xaliso khilaafaadkii soo kala gaaray ahlu sunna wal jamaa iyo Galmudug sidoo kalena xal u helidda tabashada Cadaado markuu arkay awood marooqsiga lagu sameynayo beelaha iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee markaasi matala beelaha iyo sidoo kale kala qaybintooda markii uu arkay fal in lagu sameynayo
wakaalashada madaxweynaha galmudug uu u wakaaltay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dheelitir la-aanta siyaasadeed ee wax lagu dhisayo iyada oo hal markaasi dhinac loo rarayo waajibaadka loo igmaday wakaalashada madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug oo u wakaalsho wasaaradda arrimaha gudaha fulinta warmurtiyeedkii ay soo wada saareen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka iyo madaxweynaha galmudug 28 bishii Juun 2019 qodobkiisa sheegayay ama qodobkiisa shanaad oo tibaaxayay in dowladda federaalka Soomaaliya ay soo celiso kabistii miisaaniyadeed ee galmudug si loo dardargeliyo arrimaha amniga iyo sidoo kale adeegyada kala duwan ee bulshada galmudug isla markaana uu madaxweynaha galmudug muqdisho ku sugayay muddo 3 bilood ah sidii loo fasixi lahaa dhaqaalaha midkii dowladda federaalka Soomaaliya bixisay iyo kii beesha caalamka ugu talagalay galmudug hawshana loogu talagalay in lagu qabto waxaa lagu yiri ugu dambeyntii madaxweynaha galmudug wuxuu xeeriyay qodobka koowaad dib u soo celinta wakaalashada laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 29 bisha September 2019 waxa uu madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug dib ula soo laabtay wakaalashadii uu wakiishay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta ee Soomaaliya 2 madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug wuxuu si degdeg ah u soo magacaabi doonaa guddiyo loo dhan yahay ama loo wada dhan yahay oo la shaqeeya arrimaha dib u heshiisiinta doorashooyinka iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka galmudug waa in ay dhammaan wasiirada galmudug isu yimaadaan deegaanada ugu dambeyn 10 bisha Oktoobar 2019 si loo dardargeliyo howlaha dowlad goboleedka galmudug qodobka labaad baaq ayuu soo saaray waxa uu ku baaqayaa dhammaan siyaasiyiinta waxgaradka culimo u diinta reer galmudug in ay u diyaar garoobaan sidii ay ayahooda uga tashan lahaayeen isla markaana u dhisan lahaayeen dowlad loo dhan yahay 2 waxa uu ugu baaqayaa culimada ahlu sunna wal jamaaca in la iscafiyo loona diyaar garoobo sidii loo dhisi lahaa galmudug mid ah 3 waxa uu ku baaqayaa in wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dib u heshiisiinta Soomaaliya in ay si ixtiraamto oo hanaanka geedi socodka dib u heshiisiinta iyo sidoo kale doorashooyinka galmudug isla markaana ilaaliso qodobka 120aad ee dastuurka federaalka ah sidoo kalena qayb ka qaato sidii loo qaban lahaa doorasho xor iyo xalaal ah 4 waxa uu ku baaqayaa beesha caalamka in ay nagala qayb qaataan sidii loo galin lahaa geedi socodka dib u heshiisiinta iyo sidoo kale doorashooyinka galmudug sidii loo taabagelin lahaa geedi socodka arrimahaasi galmudug oo isku firan oo isku mid ah oo xoreyn oo aan u xirxirnayn oo ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah qodobka 3aad ayaa qeexaya xeerkan waxa uu dhaqan galayaa marka uu saxiixo madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf isaga oo saxiixa iyo timbarihi ku yaalay si kale markii loo dhiganayo go'aankan waxa uu si aad ah u saameynayaan dowladda federaalka Soomaaliya oo rajo badan ka lahayd dhismaha maamulka galmudug hore waxay ula soo wareegtay koonfur galbeed iyo Hirshabelle Puntland siyaasadeeda goonistaag ayay tahay Jubbaland xiisad ayaa ka taagan hadda galmudug oo rajo badan ay ka lahayd gaar ahaan xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo in ka badan 40 cisho dhuusamareeb u seexanayay si galmudug gacanta xukuumadda ay ugu soo dhacdo ayaa ku hungoobay madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxa uu ka soo tagay dhuusamareeb isaga oo xiisad siyaasadeed ay aad u hareysay balse xiritaanka shirka dib u heshiisiinta ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxa ku wehelinayay wafdigiisa madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf sawiradii baraha bulshada la soo galiyay ayay dad badan si aad uga falceliyeen laakiin intaas oo dhan waxa hadda ay noqotay siyaasadda mid isbedeshay oo waji cusub yeelatay doorashada galmudug hadda waxa ay dadka qaarkood sheegayaan in ay noqon doonto mid dhadhan gooniya leh maadaama xukuumadda ay wajaheedo
wajahayso cadaadis kaga imaanaya xagga mucaaradka dowladda federaalka waxaa lagu xamalayaa in ay gadaal ka riixayso siyaasiga lagu magacaabo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor halka mucaaradkuna ay wataan siyaasiga lagu magacaabo Cabdiraxmaan Xuseen Odawaa kaasi oo siyaasadda in badan aad u darasay horan u soo noqday wasiirkii arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya galmudug murashaxiinta kale ee siyaasadda ku jira dhammaantood waxay yihiin kuwo rajo badan ka qaba hadda waxaa la filayaa in ay dhowaan dhacdo soo xulista baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug balse go'aanka ka soo baxay madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxa uu weecinaya dhammaan dhadhankii iyo hamigii laga lahaa siyaasadda galmudug waxa ay yeelanaysaa waji cusub in la daraaseeyo nooca doorasho ee galmudug ka dhici karta xukuumadda boqolkiiba 50 ayaa la sheegaya in awoodda gacanteeda ay ka baxday maadaama markii hore wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka gacanta loo soo geliyay in ay maamusho doorashada galmudug taasi oo loo arkayay in hanaanka daahfurnaanta ee doorashada galmudug ay wax badan ka bedeshay laakiin hadda waxa ay wajahaysaa ciqaab kale oo ah in xukuumaddu ay diyaarso qorshe kale oo galmudug gacanteeda ay ku soo dhigayso si kale markii loo dhigana dowladda Soomaaliya waxa ay horay dagaal ula gashay madaxweynihii dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble xafiiska uu ka tagay waxaana iminka yimid madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare dad badan ayaa u arkaya siyaasadda Waare in ay si aad ah ula shaqeynayso xukuumadda nabad iyo nolol ee Villa Soomaaliya Jubbaland madaxweynaheeda Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isna waxa uu yahay mid siyaasadda nabad iyo nolol si aad uga soo horjeeda taasi oo muujinaysa in xukuumadda cadaadis badan ay ku saartay Axmed Madoobe in uu nabad iyo nolol hoos yimaado haddii kalena ilaha dhaqaale lagu hor istaagi doono cadaadiska siyaasadeed iyo midka amni ee la saaray waxa qayb ka ahaa in duulimaadyada tagi jira Kismaayo la xanibo Puntland siyaasadeedu waa mid gooni u taagan oo madaxweynaheeda Siciid Cabdullaahi Dani in badan ayuu madaxda dowladda federaalka dhaliilo u soo jeediyay oo ku aadan hanaanka dastuureed iyo mid saami qaybsiga ee kheyraadka iyo siyaasadda dalka galmudugna waxay hadda noqonaysaa mid isbedel badan uu ka dhacayo maadaama nidaamka doorasho ee dalka hadda uu yahay mid ka duwan sidaasi haddii aad channelkeena ku cusub tahay fadlan daawada subscribe saaro oo rukumo wararkeena si wararkii ugu dambeeyay gudaha iyo dibadda ay ku soo gaareen waxaan soo xishmada kaaga codsanay muuqaalkan inaad like gareysid sababtoo ah waxba kaama dhimayso aragtidaada fikirkaaga noogu reeb qodobada aan ka hadalnay ee galmudug iyo ammaanka tan iyo kulati dambe nabadgelyo